والصلاة والسلام نحمده ونستعينه ونستغفره. maanta barnaamijka tarbiyadda aan bilaabino waxaa ka mid a inaan ilmaha xilliga ilaahay aan ku barbaarinayno ama inaan wanaag u sheego doonayno inaan ilmaha iyo ilaahay isku xidhno. ilaahay baan ilmahayna ku xidhaynaa, waxaan u sheegaynaa meel kastoon joogno ilaahay baan arkay. haddaan wanaag samaynayno, haddaan xumaan samaynayno, ina allaha yaraana. haddaan saaqidnimo samaynayno, ina allaha yaraana. haddaan fariidnimo samayno, ina allaha yaraana. haddaan ciyaaro suqnimo samayno, ina allaha yaraana. sabab ilmaha raqaba ugu jirto maanta bini-aadankii waa la kari laayahay. meel kasta, shirkad kasta waxaa la samaystay, dukaan kasta waxaa la samaystay, maxaa la yidhaahdaa kamarad. ka bini-aadankii kamaradu ka baqaya, ilaahay laakiin kaa baqayo. kamaradaaba ka baqaya oo isleeyahay way ku khashifi doontaa, laakiin ilaahay khashifaadiisa cid ka cabsoonaysa ma jirto. ilaahayna meel kasta kaa arkaya. ka ilmaha waxaan ku dhiirigelinaa oon baraynaa inuu ilaahay meel kastuu joogo arkayo. waxaan uga sheekeynaa qisadii cumar bin khadaab, gabadhii uu soo maray iyadii hooyadooda wada sheekaysana ka hadlaya inay caanaha biyaha ku daraan. markaas ay inantii ka tiri hooyadeed baa inantii ka tiri biyaha caanaha ku dar. inantii waxay ka tiri laguma darayo. oo maxaa loogu darin? amiirkii mu'miniintaa diiday ka tiri oo inaa caanaha biyaha loogu daro dadka laga iibiyo. marka hooyadii baa ka tiri cumar bin khadaab nama arkaya caanaha biyaha ku dar. waxay tiri hadduu cumar bin khadaabna arkayn, ilaahay baana arkay. marka raqwatul iimaan bay haysay gabadhaasi. sidaas baan ciyaarka ku tababaraynaa si ay inagoo maqan haddaan inagu arkayna inay ilaahay arkay garanayaan. iska tukan. bismillah, alxamdulilah, sanaa walahi salaatu wasalaam. waxay noo socotay barnaamijteena tarbiyada. maalinta waxaan kasoo hadan leeyahayd inaa ilaahay subxaana watacaala lagu barbaariyo ciyaalka intay yararyihiin inuu ilaahay arkayo wanaagay samaynayaan iyo xumaantay samaynayaan. maantana waxaan ka hadlaynaa acmaasha ugu khayr badan acmaalaha la qabto. nin baa nebi maxamed sala allahu alayh wasalam u yimiday, wuxuu weydiiyey ayu camal afdal yaa rasuulallah. xadiis macnihiisu ahaa camalkiiba ugu fiican oo la qabta nebi maxamedo. wuxuu ku yihi asalaatu calaa waqtiha, qolta sumaayo, qaala albiru lwaalidayn, qolta sumaayo, qaala jihaad fii sabiilillah. ka inagu waxaan ku dadaalayna qofta tartiibta nebi maxamed noo sameeyey camalka ugu wanaagsan waxa weeyaan salaadaan waqtigeeda ku boorinaynaa ciyaalka. salaada waqtigeeda ku boorinaynaa. waxaan ka odhan ciyaarta salaada ka horeysa, tiktoka salaada ka horeysa, telefoonka lagu ciyaaray jeeda salaada ka horeysa, filimaanta fanbrosta salaada ka horeysa, heesaha salaada ka horeysa, kubadda salaada ka horeysa, ciyaalka lala ciyaara salaada ka horeysa. talabaad markaan salaada waqtigeeda buuxino waalidkaan u samafaleyna. markaa waalidkaan u samafalna markaa saddexaad waxaan diinta ilaahay baan turyeelkeeda raacaynaa. markaa saddexdaa baan ku dadaalaynaa oo camal la qabtano.